sagaalkii bishan Disembar Mareykanku waxay duqeyn ka geysteen meel u dhow magaalada Saako ee gobolka Jubbada Dhexe waxaana dawladda Mareykanku ay sheegtay in duqeyntaasi uu ku dhintay xubin sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab inkastoo aysan shaacinin magaca qofka la beegsaday galka baarista oo la xiriiray ila ka tirsan sirdoonka Soomaaliya iyo saraakiil kale oo dhinaca amniga waxa uu ogaaday in duqeyntaasi lagu dilay sargaal xilal kala duwan ka soo qabtay ururka Al-Shabaab kana mid ahaa saraakiisha soo kacaysa ila wareedyo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ninkaasi lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdinuur oo ku magac dheeraa Marwazi kana soo jeeday gobolada Koonfur Galbeed sargaalkan ayaa ka soo shaqeeyay maktabka dacwada inkastoo xilal kala duwan oo horena uu soo qabtay mid ka mid ah laamaha sirdoonka ayaa ii sheegay in maktabka dacwadu ay dad badan u tashkiiliyeen ururka Al-Shabaab taasina ay keentay in la bartilmaameedsado hase yeeshee xubin kale oo ka mid ah sirdoonka Soomaaliya waxa uu isna ii sheegay in Maxamed Cabdinuur Marwazi uu hadda ka hor wada shaqayn la lahaa xubnaha xafiiska xiriirka arrimaha dibadda u qaabilsan ururka Al-Shabaab gaar ahaan la macaamilka ajaanibta dhowr maalmood ka hor duqeynta Maxamed Cabdinuur Marwazi dawladda Mareykanku waxay dhinaca kala shaacisay inay dib u soo cusboonaysiinayso abaalmarin dhan $5 milyan oo saarnayd madaxa Jihaad Sarvan Mustafa oo ka tirsan saraakiisha ururka Al-Shabaab ahna muwaadin u dhashay dalkan Mareykanka saraakiil dhinaca amnigu waxay ii sheegeen in Jihaad Sarvan Mustafa uu isku hayay ilaa 3 jago oo kala duwan kuwaasi oo kala ah ku-xigeenka madaxa qaybta sancada ama farsamada qaraxyada xubin ka tirsan hoggaanka iclaamka ama warbaahinta iyo inuu xubin ka yahay golaha shuurada ee ururka Al-Shabaab Saciid Cabdullaahi Dilib oo ku magac dheer Sergio waxa uu hore uga soo tirsanaa ururka Al-Shabaab aqoonna waxa uu leeyahay Jihaad Sarvan Mustafa Jihaad Mustafa Axmed Gurey wuxuu yimid Soomaaliya xilliga maxaakiimta wuxuu ka mid ahaa raggii muhaajiriinta ee maarkii xilligaas waddanka soo galay dagaalkii mataqaana iidaal ka qayb qaatay kadib markii maartii sheegay xashidadkii maartii soo galeen waddanku wuxuu ka mid ahaa raggii u cararay maxaa ku yiraahdaa Jibooyi 2009 waxaa la dilay ninka la yiraahdo Nabhaan markii la dilay ninka waxa mas'uul looga dhigay muhaajiriinta markii muhaajiriinta waxa mas'uul ka Nabhaankii booskiisu galay 2009 iyo 10 iyo 11 dagaalada hadana waxaa bilowday xamar maartii dawladda iyo shabaab ku dhex marka muddadaas maartii wuxuu mas'uul ka muhaajiriinta oday u ahaa dagaaladaas inta badan uu ka qayb qaatay xilkiisa hadda muxuu yahay shabaab hadda wuxuu mas'uul ka yahay maartii wixii tasniic ama sinaaca farsamada tasniic waa qayb ka mid ah maartii sheeg qolyaha maartii waa meesha ugu sareysa warshada ugu weyn oo maxaa ku yiraahdaa minooyinka kaydintooda farsameynta marka wax ku qaxsan waa TNT-dana waa qaaliyo waxa maartii mar walba lama helo markii la keeno xilliga go'da waxay sameeyaan marka baashi way beeqaamiyaan waxay sameeyaan maartii way barxaan waxay ku barxaan maartii maxaa ku yiraahdaa muwaad kale sida aluminium ay ku barxaan waxyaabo noocaas oo kale way qabataa waxay sameeyaan weelasha mataqaanaa ninada lagu way sameeyaan oo kale maxaa ku yiraahdaa baabuurta maartii isqarxiyo biraha mataqaanaa waxa lagu dhijiyeeyaa sameeyo marka maxaan ku dhahay qaybtaas muxuu ka yahay marka waa ku xigeen laakiin hawshiisa kala wado waa isaga kala wado ururka Al-Shabaab waxay guud ahaan ka taxadaraan inay si weyn u soo dhex galaan dadka ka yimaada dibadda caadiyana dadka ay ugu yeeraan muhaajiriinta ee ka yimaada wadamada dibadda ah badankoodu kama hayaan xilal sare waxaana taas beddelkeeda loo diraa furimaha dagaalka ama waxay ku eg yihiin xarumaha tababarka sidoo kale waxay u diraan inay ka dagaalamaan gudaha Kenya si looga fogeeyo hoggaanka sare ee xarakada qaar ka mid ah hogaamiyaasha ajaanibta oo uu ka mid ahaa Cumar Xamaami waxa ay ku dhinteen gacanta ururka Al-Shabaab kadib markii ay iskhilaafeen madaxda ururka haddaba maxaa u suurtageliyay Jihaad Sarvan Mustafa inuu xiriir fiican la yeesho hoggaanka ururka Al-Shabaab iyadoo dhinaca kalena dadka ajaanibta ah aysan xiriir fiican la lahayn hoggaanka xarakada isla su'aashaas waxaa ka jawaabaya Saciid Cabdullaahi Dilib godana hal marna kala hor imaan uu ku qanacsan way isku fiicnaayeen haddana kan joogo isku fiican yihiin uu ku qanacsan waxaa jirtay xilli ajaanibta la joogta ururka Al-Shabaab lagu qiyaasiyay tiradooda ilaa 1,000 qof kuwaasi oo u badnaa dadka ka yimid bariga Afrika hase yeeshee saraakiisha amnigu waxay xilligan aaminsan yihiin in tirada ajaanibta la joogta ururka Al-Shabaab ay si weyn isku dhimeen marka laga reebo kuwa ka yimid bariga Afrika qaar badan oo ka mid ah waxaa la sheegay inay isaga carareen Soomaaliya ayna tageen dalka Yemen halka qaar kale ay ku biireen ururka Daacish kuwa kalena waxay ku jiraan xabsiyada ururka Al-Shabaab iyaga oo looga shakiyay inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish hase yeeshee inta badan ajaanibta Al-Shabaab ee ka soo jeeda bariga Afrika waxay ku jiraan ciidanka lagu magacaabo Jaysh Ayman ee ka dagaalama gudaha Kenya
ilaa xuduudda u dhaxaysa labada waddan gaar ahaan gobolka jubbada hoose ajaanibta aan ka imanin bariga afrika ee la joogta al-shabaab badankoodu waxay ahaayeen kuwo loo jeediyey dhinaca tababarada iyo qaraxyada khubarada sirdoonku waxay aaminsan yihiin in ajaanibtan ay yihiin kuwa inta badan keenaya khibradda iyo farsamada kala duwan ee qaraxyada inkastoo xilligan ay soomaalidu yihiin kuwa si buuxda u hogaamiya xarumaha qaraxyada ayaa ururka al-shabaab ay xilligan horumariyeen farsamadooda sida ay aaminsan yihiin khubarada dhinaca argagixisada ee soomaalida iyo ajaanibtuba khubarada qaramada midoobay ee la socodka cunaqabataynta Soomaaliya saaran ayaa warbixin ay bishii hore daabaceen ku sheegay inay heleen caddayn qeexan oo muujinaysa in ururka al-shabaab ay adeegsanayeen qaraxyo ay iyagu sameeyeen tan iyo bishii Juulaay 2017 waxay sheegeen khubarada qaramada midoobay in shaybaar lagu baaray qaraxyada ay samaystaan al-shabaab shaybaarkaasi oo ay leedahay hay'adda dambi baarista Mareykanka ee FBI-da natiijadeediina dib loogu celiyey khubarada qaramada midoobay ee la socodka arrimaha Soomaaliya laakiin Saciid Cabdulla Delib oo aqoon durugsan u leh farsamada qaraxyada ee al-shabaab iyo sida ay ku helaan waxa uu galka baarista u sheegay inuusan badnayn hubkii dawladdii hore ee xilligan ay al-shabaab u adeegsadaan qaraxyada Saciid Cabdulla Delib waxa uu wareysigan galka baarista siiyey 26 bishii Sebtembar ee sanadkan waa bil iyo badh ka hor inta aan la daabicin warbixinta qaramada midoobay adeegsanaysay maba yaalama dalka horta waxa laga yaabaa inay ka harsan yihiin qadaa'ifkan taali waxa sukray waarsan laakiin muwaada hadda dadkay ku laayaan waa wax khaarijka laga keenay inta badan labayna u qaybsamaano maartay sheegawaarida iyo xisbiyada waxay geliyaan maartay sheegeen xisaam ama tardiyo waxay laptop soo geliyaan oo kala military geliyaan gawaarida weynka waxay saaran inta badan TNT waa maado loo yaqaan TNT maartay shay muddo wax burburiso waxa nitrotrowin على maartay saddex labas maadi ka kooban tahay khaarijkan laga keenay inta badan Yemen laga keenay waxa laga soo dejiyaa meesha la yiraahdo Qandara niman maartay shibrad badeed iyo cirtoogta meesha ka soo dejiyo waxa Soomaaliya dhulkaas la soo mariyaa xareera loogu keenay inta badan ama badda loo soo mariyaa ama maartay bariga soo mariyaan oo ilaa Puntland markii wuxuu ahaa soo bixista ma adko baartaankooda ma adko military loo baaraga gawaarida dadka laakiin qof markuu soo baxay maartay baartaankooda iska cayaabal hadeer laamiga Soomaaliya xeeb meesha raanay mariyaan laakiin masterka kaliya loo keeno waa meeshaas waxaad wax yar iigu noqotaa Yemen halkee baa laga keenaa miyaa la soo iibiyaa miyaa loogu deeqaa iyo sida ogtahay horta cirtoogta caalamiga jira dunyada hub maartay shaqookan mamnuuca dunyada meel walba laga gataa Yemen hadda maadaama sidoo kale wadanku iska bursay waa la soo geliyaa hubka suuq ahaan ma taqaan way ka soo gataan dad ku shaqeysto waxaas midna hadda xataa Puntland ay ka soo gataa barcayad ma aha niman ay ku fikiraan ma aha way soo galaan lacag kala baxaan laakiinadii markii ugu yartaa 200 iyo 100 u dhaxaysa ayaga keenay qolada barcayadkan intooleeda ayaga soo qaada gaalkay keenaan lacagtu waxay siyaa markay keenay meesha la yiraahdo xareere markii lacagta bixiyaa saraakiil hore uga tirsanaan jiray sirdoonka Puntland ayaa sidoo kale u sheegay galka baarista in al-shabaab hubka ay ka soo dejiyaan xeebaha Puntland iyo xeebo kale oo ka tirsan Soomaaliya Cabdirasaaq Ciise Khaatumi waxa uu ahaan jiray agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda Puntland hubka Soomaaliya soo gala wuxuu ka yimaadaa markii ugu horeysa Yemen gacanka cadan buu ka yimaadaa Yemen marka hubka ma samayso iyo laftigooda waxay keenaan dhul kale dawlado kale oo ay ka mid tahay Iran waxaa la sheegaa iyadana in marka qaarkood laga keeno Pakistan hubkaasna waxaa keena dad saraakiil hore ahaan jiray oo dawladda Yemen oo si beddelay inay gaarsadaan hubka waa gartay halkee ugu badan ka soo degaan waxa ugu badan oo ka degaa waxa weeyaan meesha la yiraahdo qaaga reerka Sanaag bariga Gardafuul xataa badacas iyo meesha la yiraahdo Xaradheer saddexaas meel ugu badan hubkan dadka keenaya ma ganacsato Soomaaliyeed ba ma maamula ma waxa weeyaan kooxo argagixiso waxaan inagu maqashoonahay inay yihiin dad ganacsata hubka ka ganacsada mana aha Soomaali kaliya Afrikada badankeed galbeed dan waa la geeyaa Afrikada maxay tahay ilaa laga soo bilaabo Suudaan hubka waa la geeyaa sabta badacas oo ka baxa marka ma aha Soomaaliya kaliya dadka ka ganacsada waa dad ganacsata waxay ka iibiyaan cid kasta oo dalab ganacsata oo ku jiraan Daesh iyo al-shabaab dabcan waxa laga iibiyaa qabaa'ilada oo hadda waxa noqotay nidaam habka qaybsiga beesha ma hubaysan baad maqlaysaa iyo wada qabi karo beesha waa dheer hubaysan marka beeluhu waxay inta badan isu hubayaan inay niiska xaajeedka ay maxay tahay si fiican uga doori karaan
waxay isu hubayaan inay maxay tahay qabiilo kale isku dhac iskaga ilaaliyaan. sometimes-na waxaa laga yaabaa hubku inuu sababo iyadoo aan dagaalba dhaceen qabiil markuu hub helo inuu hamgeliyo inuu cid kale weeraro, marka wuxuu fududeeyaa in dagaal dhaco. wuxuu mas-uul ka yahay xasiloonidarada ka jirta dalka badankeed. hubkaas ayaa shidaal u ah. waxa iibsada hubka dad siyaasiyiina oo iyaga waftooda awood ka doonaya ama dowladda ku jiran ama ku jirin. waxa iibsada dee kooxaha argagixisada, waxa iibsada dad kaloo shaksiyaad ganacsadayaala. marka hubka hadda waxa weeye farag kulul buu Soomaaliya ku hayaa. lacag adagna way ku baxdaa oo dalka dee kusoo galaa, haddana waxa khasaare ahayn ma soo kordhiyo. mar kale haddii aynu dib ugu laabanno jihaad sarwaan mustafa, waxaa galka baarista ay u sheegeen xubno ka tirsanaan jira ururka al-shabaab in xafiiskaasi farsamadu ay sameeyaan hindisayaal badan oo ay ku horumarinayaan farsamada qaraxyada iyo xeeladaha loo adeegsado. waxaa kaloo xitaa ay hindiseen xafiiskaasi gantaal ay hindiseen farsamo yaqaano ka tirsan ururka al-shabaab. siciid cabdulla dilib waxa uu galka baarista u sheegay in qaybta sanaacada ee uu ka tirsan yahay jihaad sarwaan mustafa ay isku dayaan inay kolba hindisaan farsamo cusub oo aan ku koobnayn qaraxyada, balse sidoo kale ay hadda ka hor isku dayeen inay farsameeyaan gantaal. fikradda samaynta gantaalka waxaa iska lahaa madaxii hore ee qaraxyada ee ururka al-shabaab ibraahim cali cabdi anta oo lagu dilay duqayn Maraykanku ay ka geysteen agagaarka Jilib bishii Disembar 2014. waxaa ka naqaashin waxaa kamid ah inay gantaalo sameeyaan oo maaragtay gantaalka maado waxa maadada yiraahdaan daaficado gantaalka rido ama tuurto in la sameeyo. waxyaaba noocaas ka naqaashin wixii oo dhan way socon waayeen markii dambe. waa gantaal noocee ayay ka fikireen inay sameeyaan? gantaalaha ma taqaana la rido oo maaragtay sheego waxay ka koobiyeen kolley maaragtay Filistiin meelaha saarto gantaalaha ma taqaana maxalliga maaragtay kusayska waa la sameeyay way tijaabeen daaficadu way sameeyeen xataa maaragtay sheegeen laakiin wixii maaragtay sheeg way control waayeen way iska daayeen. maxaad ka wadaa way control waayeen? anaba waa la riday balka waa la sameeyay. haye waxay ku tijaabeen inuu meel xeer cadde meel yiraahdo meesha banaankeeda xamar banaankeeda maaragtay dhinaca bar meel ku dhacay aqoon way maxaa controlki balka maaragtay la xadido. waxay kaliya ku guuleysteen inay sameeyaan daaficadii gantaalka saa ka warqabtid waxba tuuro daafici yiraahdaan. daaficadii la sameeyay daba gadaal laga qabtay way gubatay balka disay daaficadii balka way tuurtay. xoog le maaragtay u riday xagga badda u rideen waxa soo hartay xagga badda meesha cidnimo jooga shaqaalaha waxa soo haray marka waxa maaragtay sheeg dafciga waa la helay baashin wax rido laakiin controlki ma intee gaari kartaa ma waxa si mataqaana heli waayeen. marka maxay muhiim ugu tahay inay kontroolaan? way u baahan yihiin haddii maaragtay heli karaan baalkan maaragtay inay cabirkiisa oo kale helaan meesha ku ridi karaan haddii ogaan karaan baalka maaragtay kilomitaraadka iyo meeshaas ku dhufan karaan diraan meel walba ku dhufan lahaayeen. waxay ku guuleysteen kaliya inay dafcigiisa baalka inay ridaan kaliya ku guuleysteen laakiin haddii rid intuu taga ma 20 mitir kaliya ku dhaca 100 mitir ma gaar qofku wuxuu rabaa moogtay hadaf wax ku dhufto. marka fikraddii ma halkiibay ku dhimatay mise mar kale sii wadeen? niho waa kolley markaas dib in loo soo bilaabay kala maqan laakiin ragga markaas ka shaqeynaa hadda wax ka noolaan jirin. sida ay al-shabaab u kobciyeen awoodooda samaynta si lamid ah waxay badbedelayeen xeeladahooga. sidoo kale waxay bedelayeen noocyada qaraxyada iyaga oo ku bilaabay waddada dhinaceeda goor dambena ku xiray baabuurta. xataa waxaa dhacday qaraxyo lagu xiray geedaha korkooda kuwaasi oo lala bartilmaameedsanayay dadka hoos fadhiista ama hoos mara ama ag mara geedaha. waxaa sidoo kale al-shabaab ay qaraxyada ku rakibeen kombiyuutarro iyagoo isku dayay inay ku soo ridaan diyaarad bishii Febraayo 2016. khubarada dhinaca amniga iyo xubno hore uga soo goostay al-shabaab waxay galka baarista u sheegeen in ururka al-shabaab ay xataa ku hamiyeen in diyaaradaha dharowniska ah ay ku rakibaan qaraxyo si ay ugu bartilmaameedsadaan shakhsiyaad gaar ah oo dhex maraya magaalada iyadoo laga hagayo meel fog. siciid cabdulla dilib oo hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu xaqiijiyey in damacaasi uu ku jiro ururka al-shabaab. diyaaradaha dowladda kula sheegay horta waxaa nooca la yiraahdo way DJI waa nooc inta badan shacabka isticmaalaan oo iclaamiyiinta iyo muxuu ahaa iyo dadka lamid ah isticmaalo. waa baqaaleero maaragtay sheegeen awadaas loo diraa ilaa waxay ku maqnaan kartaa 5 daqiiqo. iclaamiyiinta isticmaalo maaragtay iskaabirta lagu xiraa kor saas wax looga duubaa xataa Soomaaliya way taalaa iclaamiyiinta Soomaaliya way isticmaalaan waa arkay marka ayagu waxay rabaan inay si kale ugu faa'iideystaan ileen baabuurtii soo gelinta xamar way adkaatay oo wax badan la qabtay meelihii weerara meelay wax ku dhufan jireen kulli maaragtay waa inay gaaraan way ku adkaatay. marka nimankan aslaba maaragtay sheeg
haddii wada ay ka xirato midkay raadiyaan imraan مثلا baasha la shaqada goorma la keenay waxay keeneen markii laamiyada la dhisay oo muxuu ahaa dalka la dhijiyay markii midayku xigirin jiray dhulkii gelin jiray laamiyada ma dhismo lagu bilaabay la dhijiyay markii wixii ma geli kara laami mar tani su'aal fiiro maxaa ku leedahay istikriista bataqaar gaari lagu dhijiyay marka hadda maadaama maaragtay isay gawaarida maaragtay soo geeyay xamar ku adkaatay waxay ku fikireen ma taqaanaa in baalaasi kaga faa'iideystaan wax ku xiraan oo ay ku carqalad kaga sameeyaan maaragtay meesha ku fikiraan iyo wax ku sameeyaan ku sameeyaan waa gartay xagee marka waxay saari karaan wax badan ma aha kala xataa maaragtay waxaan ra'yi maaragtay safir hadda dhexdooda wareegayso waxay soo waay wax la dhameeyo maaragtay oo diyaar ma aha laakiin in laga warqabo fiican marka wax yar ii sharax sida ay rabaan inay isticmaalaan waxay rabaan inay magaalada ku kiciyaan oo ay meel wax kaga tuuraan mise waxay rabaan droniska oo qarax ku xiran yahay inay qof ku dhuftaan ama dhismo ku dhuftaan sidee bay wax qorshahooda waa sidee marka horta taargetkooda ugu weyn waa in ay xamar wada ka dhigay si lagu geyn karo xamar ma taqana waxaan kaga dhici karaan xamar waa in qarax ka amar waa in caalamka aan laga dhigin xamar aan nooda inaan la dhigin وهذا ما أردت حسارة وعقاتين تصاروا ما أردت اللي حموا نوض ما أنا لدى حشاش كمتي كراري كوب حتى ما أردت شيء عيار اللي الجبوتها كل عياراني وحيانا نوع اسمع إن وضع كيسا إنت سانو سيقجروا تارجي تدوين وقتوا إنتاس واقرت وحق رحينا ودينا وادرين كرتادا قرحنا ما أردت قرحنا حمر سوقين ولا وذروقي وما أردت شيء واحد ولدك قلت ما وجرام شعبا كوبابو واحد متغانا يكرون وإن لي للحمر والله galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya si uu wax uga weydiiyo halista ururka al-shabaab xeeladahooga iyo qaraxyada ay adeegsadaan hase yeeshee ilaa haatan nooma aysan suurtagelin inaan ku qancino waraysi inay bixiyaan hase yeeshee galka baarista waxa uu suurta gashay inuu waraysto taliyii hore ee ciidanka danab ee ay tababareen ciidamada Mareykanku gaashaanle dhexe Cabdiraxmaan Cumar Warsame Jeeni Qaar oo dhawaan xilkaasi wareejiyay xilliga uu galka baaristu waraystay taliya Jeeni Qaar waxa uu weli hayay xilkiisii taliyanimo ee danab inta iyaga ay danaynayaan inay waxyeelo sameeyaan annagana waxaan raadinaa xog ah ku saabsan noloshooda iyo xaadirada ay yihiin iyo waxa ay ku dagaalamayaan iyo qalabka ay haystaan iyo intay jira leeyihiin intaba waanu raadinaa marka dadka way jaawareeriyaan laakiin awood sax ah oo ay leeyihiin maanta ma jirto sida runta ah waa gartay laakiin dabcan taliyaasha dee ciidamadaad ka mid tahay deegaanadana waad ka dagaalantaa aqoon baad u leedahay hubkan la sheegayo milaanka iyo Sam 7 iyo waa hub Soomaaliya hore u yaalay dad badanna oo khubaro military ay sheegaan inuu gacantooda ku jiro marka wax walaac idin kuma hayamiya horta hubkii hore oo Soomaaliya yaalay horta hub hadeer xaalad sax ku shaqayn kara ama 40 sano ilaa 50 sano wax hubo oo intaas yaalay sidii loogu talagalay shaqayn kara ma jiro haddii ay leeyihiin Sam iyo maxaan tiraahdaa qoryo kale oo wanaagsan waa laga yaabaa inay qoryada teelisadana iyo siiyo iyo inay haystaan waa wax dhici kara laakiin aysan isticmaali karin laakiin kuwaan gacanta laga rido wax awooda oo ay usoo kordhinayso hadday haystaanba ma jirto muhiimadda waxa weeyaan qofka ciidan ma haystaan nimankani ciidan awoodla ma haystaan waxay wax ku weeraraan wax ururis ah maalin markay meel weerarayaan waxay ururiyaan dadkaas 3 bilood ilaa 4 bilood inay meel ku weeraraan oo weliba ay qof walba keenaan meeshaas qorigii usoo aasaan kabacdigeed ay sida ay isugu xiran yihiin iyo inay unug noqdaan iyo inay koox noqdaan ay ku qaadato waqti dheer waayo waxay baqayaan inta ay rabaan inay dhibaateeyaan waxay ogyihiin in ka badan in la rabo inay dhibaateeyo iyada marka kalsooni ay wax ku arursadaan ama wax ku diyaarsadaan ma haystaan mana qabaan waxa aan wax ka weydiiyey taliya Jeeni Qaar xeeladaha iyo farsamada al-shabaab ee isbedbedelaysa waxa la sheegayaa inay drone-iska keensadeen oo doonayaan inay qaraxyo ku xidhaan oo ama ciidan ay ku weeraraan ama saldhig ay ku weeraraan jawaabtaada drone-iska horta waa ganacsi wax maxaan tiraahdaa ciidankana waa isticmaalaa media waa isticmaalaan waxaan tiraahdaa bulshada inteeda kalena way isticmaashaa marka waa wax bareefad oo si bareefada loo gadan karo laakiin waa inaad isweydiisid kiilo intee la qaadi kartaa marka ugu horeysa waa laga yaabaa inay isticmaalaan wayna isticmaalaan oo hadda ka hor way dhacday inay isticmaalayeen sawirro ku isticmaalayeen iyo wax kale uma isticmaaleen laakiin haddii laga guulaysan waxay ku talagalay inay sawirro isgeyso haddii ay guulaystaanna inay sawirro ay baraha bulshada ku faafiyaan inay ka sameeyaan
taas waa wax aan lamid ah weeye oo bulshada rayidka ahna isticmaasho ciidamadan isticmaalaan laakiin daroonis wax u qaadi karta oo maxaan ku rahday wax garaaci karta oo wax samayn karta oo qaraxyo kiilo qaraxya qaadi karta ma haystaan mana la imaan karaan. laakiin haddayba ku fikirayaan sidaas ka waran halis intee leeg bay ayaa ka iman karta? waxaa halis badan oo sii weyn kama imaan karto waayo annaga ciidankeena wuxuu u diyaarsan yahay in uu la dagaalamo argagixisada. argagixisadan waxay isticmaali kartaa weji kasta oo qalabsan bay la imaan kartaa, haddana annagana waxaa nala kaga baahan yahay inaan dulqaad u samayno markaasna looga hortago kaarto iyo balayn iyo qorshe. marka annagana qorshayaasheeda waa noo dhisan yahay, hadday la yimaadaan ma aaminsan inay wax bedel oo culays weyn kusii samayn karayso ama ay gaarsiin karaan ciidankeena. ka sokow kabaca farsamada qaraxyada ee ururka al-shabaab waxaa dad badan ay isweydiinayaan sida lagu wiiqi karo awoodda ururka ama looga adkaan karo. Siciid Cabdulla Dilib waxa uu leeyahay ma cusla in laga adkaado ururka al-shabaab. ariga kaliya laga hortagi karo waa in maaragtay mar lagu wada dhaqaaqo maaragtay lagu sameeyo waxa la yiraahdo khaltul awraaq. marka waxa looga qaaday maalin bay magaalo looga saaro wax looga qaaday ma jiraan. magaalooyinka oo dhan intay banneeyaan marka magaalo agtooda waxba kama ah. waxa ahmiyadu waa haykalkaas mataqaana iyo nidaamkoodaas inuu dhisnaado. nidaamkana waxaa lagu burburin karaa dagaal mataqaana dhinac walba hal mar ciidanka militariga inay meel walba ka dhaqaaqaan Jubbooyin, Baybakool, Puntland, Hiiraan meel walbo in maaragtay maca duurka maca jabhada hal mar la galo ay iswaayaan. waxaa ka dhalan doonta ay iswaayaan oo mid kale la xiriir la waayo kuwa badan oo ay kamid ah la qabto kuwa badan oo ay kamid ah dalka ka baxaan. markaas xiriirkoodii iyo mataqaana iska warqabkoodii wuxuu aad u sugu dhaca. laakiin hadda markii la yiraahdo magaalaha laga